Marka ay xididada ku yaala futada mise malwadka qaybta hoos bararaan waxaa luqadda hooyo lagu yiraahdaa bawaasiir, halka magacyada luqadda qalaad lagu dhaho hemorrhoids, piles. Ku dhawaad waxaa la qiyaasaa in 50% dadka da'doodu tahay 50 sano ay isku arkaan bawaasiir. Bawaasiirtu waxay ka mid tahay xanuunada keena qofka inuu ka dhiigo malwadka mise mareegtada rectal bleeding. Lama oga waxa xanuunkani si dhab ah u keeni kara, laakiin waxaa jira waxyaabo fududeyn kara sida haddii uu cadaadiska ku bato mareegtada waxay saameyn ku yeelanaysaa qulqulka dhiigga iyo in xididada noqdaan kuwa bararsan. Xaaladaha keeni kara waxaa ka mid ah haddii mindhicirada la waxyeeleeyo sida dhaawaca, haddii qoyskaaga horay u qabeen, haddii aad calool istaag ka cabanaysay muddo fog, fadhiga badan gaar ahaan xilliyada xaajada in ka badan 15 daqiiqo. Calaamadaha uu yeelanayo bawaasiirta waxaa lagu saleeyaa nooca uu yahay, sidaa awgeed waxaa jira ilaa 2 nooc. Waxay kala yihiin bawaasiirta gudaha internal hemorrhoids. Noocani waxa uu ku dhex yaalaa gudaha malwadka, inta badan ma ahan kuwa muuqda, laguma arko wax calaamad ah, laakiin haddii ay soo gaaraan dhaawac waxay keenaan dhiig aan la socon, xanuun xilliga xaajada mise saxrada. Bawaasiirtu inay ka soo muuqato marinka futada. Bawaasiirta dibadda external hemorrhoids. Noocani waa nooca ugu badan ay dadku yeeshaan, uguna dhib badan. Calaamadaha lagu aqoonsado waxaa ka mid ah cuncun daran, xanuun, barar, dhiig. Qofka waxaa dhib ku noqda fadhiga. Markastoo ay dadka da'doodu korodho waxaa badanaya fursadaha uu xanuunkani ugu dhici lahaa, waayo waxaa daciif noqonaya mise hoos u dhac ku imanaya unugyada xididada malwadka iyo futada. Sidoo kale xanuunkani waxaa u nuglaan kara hooyada uurka leh, dadka buuran, dadka sida joogtada ah culeyska u qaada. Bawaasiirta inta badan wax dawo ah uma baahna, iskiisa ayuu iskaga bogsadaa. Waxaa kugu filnaan kara inaad isticmaasho xanuun joojiye iyo isbeddel inaad ku samayso qaabkaad u nooshahay sida una qaadashada. Haddii ay tallaabooyinkaasi shaqeyn waayaan, waxaa macquul ah inuu dhakhtarkaaga u daweeyo qaab qaliin ah. Fadlan haddii aad tahay hooyo uur leh, waxaan kula talin lahayn inaad dhakhtarkaaga la xidhiidho ka hor intaanad isticmaal wax dawo ah, mise inaad wax ka beddesho cunadaada. Daweynta guriga. Qaabka lagu magacaabo sitz bath waa hab ay dadku bawaasiirta qaba ugu fadhiisanayaan biyo diirimaad leh ilaa 15 daqiiqo. Wuxuu kaga caawinayaa inuu ka yareeyo xanuunka iyo cuncunka. Waxaad badinaysaa qubeyska adigoo futada ku nadiifinaya biyo diirimaad leh. Waxaad iska ilaalisaa inaad adeegsato wax saabuun ah, waayo waxay kugu kicin kartaa bawaasiirta. Hydrocortisone iyo hemorrhoids cream waxay ka mid yihiin dawooyinka la ogol yahay inaad ka soo iibsato meel ka baxsan dhakhtarada mise isbitaalada oo aad ka heli karto farmasiyaha. Waxay yareeyaan xanuunka iyo cuncunka. Haddii aad arki weydo wax isbeddel ah kadib daweynta guriga, mise aad isku aragto dhiig xilliga xaajada, waxaa wanaagsan inaad la kulanto dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow. Haddii la daweyn waayo waxaa dhici kara dhiig yaraan, anemia, dhiig xinjirow. Qaabka ugu wanaagsan bawaasiirta loogu hortagi karo ayaa ah in saxrada laga dhigo mid jilicsan. Waxyaabaha saxrada lagu jilciyo waxaa ka mid ah cunada ay ku badan tahay fiberska. Fibersku waa qayb ka mid ah carbohydrateska jirkeena awood uma lahan inuu wada burburiyo. Cabidda biyaha badan, jimicsiga, afeef. Muuqaalkan kama turjumayo qof shakhsi ah mise koox daweyntooda, kaliya waxaynu ugu talagalnay wacyigelin iyo faham guud. Mahadsanid.